haddaan nahay Soomaali oo dad iska tabar daran iska daciif oo kaabiyaasha mataqaana caafimaadka iyo waxba haysan aan nahay waxa weeyaan waxa la yiraahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka dhowrsashada waxay ka fiican tahay daawada cudurka intuu yani qofku markuu ku dhaco see loo daaweyn lahaa waxa in yani lagu fikri lahaa oo kolba dhakhtar loo geyn lahaa waxa ka fiican ka dhowrsashada ayaa ka fiican marka waxa weeyaan maadaama annaga saas aan nahay dad iska tabar daran aan nahay in mataqaana waxa weey oo caafimaadka meel kasta oo mataqaana firiin noo ahayn aan heli karin in aan ku dadaalno ka dhowrsashada in aan ku dadaalno تعليماتك إيه تلوينك إيه توجيهينك متقانا ضدك أو أهل التخصص كاس وعافماتك دخاتير السوجيديا إن قادنا يعني لقدونا يا نبي عليه الصلاة والسلام وحو ديدي إن لقالوه بلدك داعون قدعه إن لقالوه نبي واد ديدي قفك كجرة بلد كاس إنه كصوبح أنا واد ديدي سببت السيدة الله سمينا ين وحيتها هاي إن عذرك متقانا وحويا الحيرو ميل وكوبا وحاس وحيابها الله يقانا وهذا مثلا dadku u yaqaaniin alxajr as-sihhi yani karantiilka wax dadka ay u yaqaaniin cudurka in la karantiilo si faafidiis loo yareeyo oo loo mataqaana waxa weeyaan xajmi looga sameeyo xajmiis loo yareeyo in maanaha mataqaana waxa weeyaan aan loo galin aan mataqaana waxa weey laga soo bixin marka kan kaas oo kale uu limid yahay ilaahi wuxuu yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxa idinku aqoon u lahayn weydiiya dadka aqoonta u leh idan cuduradaas iyo baabkaas waxa shaqadooda ay tahay dhakhaatiirta iyo dadka mataqaana waxa weeyaan caafimaadka shaqo ku leh ayaa yaqaana dadkaas marka talooyinka iyo mataqaana tawjiihaadka iyo irshaadaadka iyo mataqaana talooyinka iyo nasiixooyinka ay soo jeediyeen waa in loo iltizaamaa in la qaato weeyaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh